اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد يا نبي حبيب العالم بدر وعلي وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد يا نبي حبيب العالم بدر وعلي وصحبه وسلم. وحكينا inankiinnii baan ahay adeeradii baad tihiin dhammaantiin inamadayadii baad tihiin dhammaantiin qof kasta waxaan ku salaamayaa magaciisa iyo milkihiisa aad iyo aad baad u mahadsantihiin waan ku faraxsanahay 10 sano maan iman ruqi halkii aan ku barbaaray halkii aan ka soo jeeday giir loo aadiyo girid muxooya midna maxraba la yidhi anigu hanka sare ruqi baan kala tegey aad baad u mahadsantihiin sharaf bay tahay idinkana sharaf bay idin tahay inaan inankiinnii ahay aniguna inaad adeeradaya aabbayaashay tihiin aad baan ugu faraxsanahay waxaan ku koray aqal midnimada laga jecel yahay waxaan ku koray degmo midnimada laga jecel yahay waxaan la koray dad wanaagga iyo wada jirka jecel baan la koray ruqi baana inta laga helaa marka hore waxaan ugu mahadnaqayaa oo ugu horraysiinayaa intii dhimatay allah u naxariisto dadkeennii waaweynaayo culimadeennii ilaahay u naxariisto ilaahay u naxariisto dad badan oo halkan markaa ku koraya joogay maanta inna lama joogaane ilaahay qabriga u nuuro marka xigta waxaan halka ka salaamayaa macallimiintaydii dugsigay qoray waan ka xusay carab cabdinuur maxamed daahir madar yuusuf axmed bookh allahuma salli calaa maxamed yuusuf ismaaciil aad iyo aad baad u mahadsantihiin waayo anigu qofkaan ahay iyagaa sameeyey qofkaan ahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin macallimiintaydii waxaan ku darayaa culimadii magaalada aw nuux suldaan allah u naxariisto الله عافيه ونوح سلطان شيخ محمد أمين إلهي شيخني ولا شيخ راي بكالنا ونحرسته إلهي علماء نيتي دمتشا عمر بخذ الله ونحرسته إلهي تنو العمر قد هراتيو هذه أدباد ما تسنتين شرف بيتاي إن أتصدى يسود ويسان واي أنو هديان عداي هديان قلاهي هديان قيساي إيه تبرق بانهاي waxaan u mahadnaqayaa saaxiibadeydii iskuulkaan wada dhiganayna halkan laga wada qoray iskuulka dhammaantood inta joogta ma ka gayoon karno haddaan magacyadooda maanta oo dhan tirino aad bay farxad iigu ahayd inaynu iskuulka wadaagno aad bay sharaf iigu ahayd inaynu wadaagno hooyooyinkii magaalada ruqi dhammaantiin waan idin wada arkaya aad iyo aad baad u mahadsantihiin idinkuna walaalayaal aniga imaantikayga iyo doonistaydu maanta waa u bixiyay halkanaad ku barbaariseen hordhiciisii qaraxiisii weeye insha allahu tacaalaana waxaan rajaynayaa inuu midho dhalo oo rag badan oo kale oo halkanaad ku koriseen ood ku barbaariseen oo idinka mid ahaa inay halkan iyo meel ka sarraysa iyagoo ay tegi doonaan insha allahu tacaala ruqi waa xarunta mujaahidiinta